xildhibaan Axmed Afyar oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco ayaa afduub sharci ku tilmaamay heshiiskii saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ku gaadheen in komishanka doorashooyinka Soomaaliland ee cusub 9 xubnood laga dhigo heshiiskaas oo ay ilaaleen baarlamaanka Soomaaliland. xildhibaanka ayaa si gaar ah ugu eedeeyay xisbiga talada dalka haya ee kulmiye in ay iyagu faraha kula jiraan. waa kan xildhibaanka oo ka hadlaya in heshiiska jabay un bay la tahay wixii lagu heshiisay waaye heshiiska uu jabay kii lagu ballamay in baarlamaanka la geeyo lagu ballo nasiibkiisa laga qaado haddaan la geeyo dhaxda laga inqilaabay heshiiskii baa buray asxaabta ay ku heshiisay markaa waxaan leeyahay heshiiskii waxaa jabiyey qolada kulmiye waxay noqonaysaa talamaroorsi inqilaab weeyaan waxa ummaddu ku heshiiso maslaxad ahayd oo ummadu ku dhex oo cabeesha caalamku inuu dhex gashay in la yiraahdo daaqadan ka tuurnay waa dictatornimo waxaan u arkaa inaan tala wadaagi meesha ka baxay in isu tanaasulka meesha ka baxay in wada hadalladii iyo heshiiskii laab xaaladkii meesha ka baxeen markaa waxaan u arkaa in tala maroorsi iyo wax wada laasha la'aan ka muuqato meesha golahaas laalintu waxa la rabay in cod lagu kala baxo oo mar la kordhiyaa mise sidii baa lagu galaa laakiin intu qof waraaq akhriya tayda go'aan ah waxaa nasiib darro weeyaan waa nasiib darro inay midoobaan baan ugu talagalay ugu baaqaya inay midoobaan oo maalin walba hadday shiraan waxba ka jirin yeelaan oo maalin walba heshiisaan waxba ka jirin yeelaan oo maalin walba igu sawir waxoodu ay la galaan sawir ay la galaan kura inaanay dib u dhicin baan ka rajaynaya weliba xusbiga wadani waxaan ka rajaynaya inaan sawir dambe kura aanay gelin mar haddii 15 arrimood oo lagu heshiiyey ay dhali waayeen inaan sawir kura dambe maamulkaygu aanu la gelin baan u soo jeedinaya golaha waxaan leenahay golaati 15 waa fadhida waliba anaga waa naga horeyseen 7 sanadood baa naga horeysay oo 8 sanadood dhow baa naga horeysay waa dalkiyo dadka dhisan aynu ka tagteena wax dhamaystiran oo sharciga sameeya oo aad ka tagtaan oo la idinku xasuusto sameeya ha galaafanina wadanka ayaan leeyahay intaanu 15 sano ka shaqeysatay haddana maanta dadkii ku galgalataan waa dhib oo mar saami qaybsi u beedhaan oo mar xeerkii madaxweynuhu soo saxeexay heshiiskii soo saxeexay allaashaan waa ayaan darro geesta kale xildhibaan Axmed Afyar ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeedhay maayirka magaalada Boorama oo sheegay in magaalada Boorama ay tahay caasimadda labaad ee Soomaaliland waxaana uu sheegay in caasimadda labaad ee Soomaaliland tahay Burco isla markaana aanay cidi ku murmi karin tan Hargeysa laga jaray tan Laascaanood laga jaray marka gobolnimada waa dhowr isteetiki degmay ahayd degmada Hargeysa ka tirsan qoyga ka tirsan ayaa marka gobolkii u dambeeyay Booramo la magacaabay Sool bay ahayd labadii gobol ugu baalis gobol Soomaaliya waxa ahayd 16 gobol 18 labadooda la kordhiyay siyaad barnaamij ku dhacay la kordhiyay waxay raatiis marka waa nasiib darro inta iyadoo shalay la magacaabay in tiraahdo haddana caasimadii labaad ama caasimadii koowaad baanu ka horeynaa waa nasiib darro bal taariikhda tiri inta jirtay horta marka hore aad qabsatide tiri iyadoo siyaad barnaamij dhacay ku magacaabay Booramo magacaabay markaa inaad moodo dheer moodaa waa qalad gobolada u hooseeya baan ku leeyahay u hooseeya waana u dambeysay faylkaaga galbaa u leeyahay waa Cabdiqani Baafo raadiyaha iyo TV-ga caalamiga ah ee Dalsan magaalada Burco.